Alxamdulilah, subax wanaagsan meel kasta adduunka aa ka joogtiin fiidiyogan idinka iskale. Waxaa soo booqanaya isbitaalka marka qof xanuunsanaa ku jiray aqoonna umaanan lahayn. Ilaahay dartiis baan u tagnay. Marka in isbitaalada la booqdan yacni wax islaamka u wanaagsan waa ma fahamteen caafimaadka maanta aa qabta qof aanan qabin. Wax badan aa soo xasuusanay wallaahi waqtigaa iska dhuminis dhan aa ku soo dhacayo. Isbitaalada hala booqdo way noo wanaagsan tahay. Asxaabey marka aad isbitaalka galay meesha aa ku qabana waxaa moos iyo waxbaa ku yaalo keligay meehno maama ila socotay ilaahay khayr ha siiye. Meeshaan aa u jeedin waxaa waa xoogo biyaha iyo waxaas aa lagu shubaa lagu isticmaalaa. Marka dhulkan waxaa geedi iyo waxaas isaga yaalo maasha Allah tabaarakallah si hadii niin ay qabanayaan oo kaleento. Isbitaalkan waa tagay maalintaas markaa tagay habeenkeen wallaahi waa ku laabtay waa tagay oo cashaa la geenaayay. Ilaahay caafiyo qof kasto islaam oo xanuunsan dhibkan Allah ka qaado. Marka walaalayaal soo dhawaada subscribe ha iloobina like na saara comment-na soo bixiyo qurux badan idin Allah haduu Ilaahay yiraahdo. Comment-ga wax walbo ila jeceshahay caadi waayo ku soo qora waa idin ku qaadanayaaye. Marka asxaabteyda qaaliga ah tan kaleento idin sheegi waxay ahayd yacni balantii aa qaaday haduu Ilaahay yiraahdo inaa oofin doono insha Allah tacaala. Marka ani hadii 5 qof i daawato 5taas qof qalbi wanaagsan nadiif ayaga iga badan ma fahamtiin ayaga ii buuxiyo 4 milyan oo dad ah. Marka hal qof oo ku wanaagsan laguma doorto boqolaal yacni oo kan ku ma fahamtiin. Marka falilaahi alxamdu wa shukru meeshaan waxaa waaye geeda isaga qabanay. Isbitaalka markaa gal wax kaamil diidaysa ma jiro laakiin aniga ma jeclaysanin qof xanuunsan oo muslim oo walaalka oo jiif inaad duubo anshax xumi sharaf xumi igu noqotay. Marka haddana waa kaas waa soo baxnay alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iskale aan la soo koobi karin. Tan kaleento walaaladay waxaa geedaha inaba caadi maan maasha Allah tabaarakallah saa u jeedin idinka boo iska qurux badan yihiin. Marka guryahan insha Allah lagu abuurto waxaa cagaarka indhaha jecel buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam macaanka carabka jecel meehno waa iloobe macaanka carabka jecel cagaarka indhaha jecel. Saddexaad maxay ahayd marka intaas dhamicna sifaadka adduunka ma fahamtiin ilaahay adduunyo qahmigeena kama dhigo. Marka walaalayaal ani maxaa dhulka hoos ay ugu wadin korma ay qaadin xaasinimada la iska daayo. Subscribe saara share fiican i sameey haduu Ilaahay yiraahdo qofkii maalin wax ay qabto waxba inuu isiin ma fahamtiin yaa waa idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ay garb istaagteen. Marka walaaladeyda qaaliga ah meeshaan waxaa waani maama ila socotay markaa soo laabaneed fiidiyogan aa ku qabanay inaba caadi maan alaabtan waxaa lagama sheekeyn karo. Saad u jeedin waxaa waaye maasha Allah tabaarakallah soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada minikiin waaya ismartiinina waa kaas marka gabadhiina le waaye. Teeda kaleento waxaa rabay inaa idin dhaho ballanqaadkii aan sameeyay wuxuu ahaa haduu Ilaahay nafti ii daayo raalin iga noqdo insha Allah aa idin sameyn doono ayna iga go'an tahay waxaa waa soo wada ma fahamtiin. Marka idinkan insha Allah tacaala comment-iga ugu soo dhiirigeliya comment fiican ii soo qoro wanaagsan waxaa la gabdhaha maanta way jecelyihiin mogtaa. Marka comment wanaagsan iska soo qora hadda waxaa la taagan yahay waa la baxooyaa la ma fahamtiin. Marka waxaa waa insha Allah socodkii ku jirnaa marka aa soo baxnay kadib dan maxaa qaban doonaa gabadha isku taagis ani